صاحب هذا بيجك كعصب تحي ندي رجع وده سبسكرايب لايك يا شير. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم واتحانهني قوشا نولوشا قيبتي أفراد وحيكو صابسنتهي قوشا آخره maxaa qiimo ah oo qofku leeyahay haddii uu ku guulaysto dhan walba oo nolosha ka mid ah laakiin aakhiro naarta madax loogu tuuro jawaabtu waa maya wax qiimo uu leeyahay lama arko haddaan su-aal isweydiinay imise ayaad adduunka ku noolaan kartaa 70 sano 120 haddaad gaartana jaraa'idka ayaaba lagugu soo qorayaaba marka waxaad barbar dhigtaa nolosha adduunka ee gaaban iyo tan aakhiro aan dhammaad lahayn laga duqoobayn laga dhimanayn waxaa jira oo keliya waa janno iyo barwaaqo joogto ah ama naar iyo cadaab aan dhammaad lahayn haddaba adduunkan ma lagu doorsan karaa aakhiro si aan marka u gaarno guusha aakhiro waa inaan raacnaa 4 mabda'a koowaad niyadaada allah subxaanahu watacaala u saafiyeen taa macnaheedu waa shaqo walba ood qabanayso ha ahaato alla darti waa inaad allah subxaanahu watacaala ka ajir xisaabsato rasuulkeena muxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi inama alacmaalu binniyaat qof walba wuxuu leeyahay waxa uu niyeysto qofkii u soo haajiray alle iyo rasuulka allah ayaa ka abaalmarinaya hijradiisa ninkii u soo haajiray adduunyo iyo gabaruu jecel yahayna wuxuu leeyahay wuxuu u soo haajiray oo macnaha wax ajir ah ma lahan laba qof ayaa waxay qabanayaan camal isku mid ah xagga muuqaalka laakiin niyadda ayaa kala duwan midna jannada ayuu ku gelayaa kan kalena waxba kama dheefayo haddii uuna naar ku gelin ogow biilka aad siinayso reerkaaga waalidkaaga caruurtaada qaraabadaada waa cibaado haddii aad niyeysato xataa ciyaarta gogosho ee xaaskaaga ajir ayaad ka helaysaa haddii aad niyad saafiya la timaado oo aad ajir xisaabsato iska ilaali istustuska waa khatar waana shirki camalkana wuu buriyaa sida xadadku u buriyo weysada xadad waxaa la yidhaha waxa weysada jabiya marka sida weysada u jabiya xadadku ayuu istustusku camalka u burinayaa nabigana wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaan idinka cabsanaya waxaa ugu daran shirkiga yar waana istustuska ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo xabiibkani maxamed sala allahu calayhi wasalam uu noo sheegay shirkigu inuu qarsoon yahay oo wuxuu yidhi shirkigu waa ka qarsooni badan yahay quraanjo madow oo habeen gudcur joogta oo dhagax madow ku kor socota xabiibkeena maxamed sallallahu calayhi wasallam waa ka ducaysan jiray shirkiga oo wuxuu oran jiray ilaahay waxaan kaa magangelayaa inaan shirki kuu sameeyo anigoo og waxaanan dembi dhaaf kaa weydiisanayaa wixii aanan ogeyn ku dadaal inaad ka feejignaato istususka camalkaagana ilaahay subxaanahu watacaala u saafiyeen mabda'a labaad baro allah magacyadiisa iyo sifaadkiisa sareeya dhammaanteen waa naqaanaa allah subxaanahu watacaala ee macnuhu waa sii baro qofkii ilaahay kaaga aqoon badan waa kaaga cabsi badan yahay inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay culimmada unbaa ka baqda wuuna kaaga jacayl badan yahay saacad cibaado khaasa samayso oo aad ilaahay aada la keli noqoto oo aada cibaadaysato la munaajooto oo aad dantaada u sheegato khalwadu waa cibaado sir ah oo ka dhaxaysa addoonka iyo rabbigiisa soo toos habeenkii allah u tuko bari oo weydiiso danahaaga allah waa mid naxariis badan wuxuuna nooga naxariis badan yahay aabbaheen iyo hooyadeen hooyo ka mid ahay dad maxaabiis ah oo cunugeedii ka lumay heshay ayaa intay soo qabatay oo cunugii bogga ku qabatay oo ay dhunkatay naaska afka u gelisay saxaabadu way fiirinayaan aad bay ula yaabeen hooyadaasay cunugeedu u jeceshahay halkaas xabiibkeena maxamed sala allahu calayhi wasalam wuu su-aalay saxaabadii oo wuxuu ku yidhi ma u malaynaysaan hooyadani inay cunugeeda dab ku ridi lahayd waxay yidhaahdeen maya rasuulka ilaahayow rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ilaahay ayaa uga naxariis badan addoommadiisa hooyadan cunugeeda sayid cali radia allahu canhu ayaa waxaa sidoo kale uu yidhi maalinta qiyaame haddii la yidhaahdo xisaabtaada waxaa xisaabinhaya hooyada iyo aabbahabaa ku xisaabinaya wallahana raalli ku ahayn buuri in ilaahay i xisaabiya moogiye sababtoo ah ilaahay baa iiga naxariis badan hooyaday iyo aabbahay mabda'a saddexaad baro xabiibkeena maxameda sala allahu calayhi wasalam baro siiradiisa baro dhaqankiisii akhlaaqdiisii naxariistiisii dadla dhaqankiisii cibaadadiisii salaadiisii jihaadkiisii abulxasan annadawi ayaa wuxuu yidhi wallahi waxay ii anfacday qisooyinkii siirada nebiga
oo ayeeday iiga sheekayn jirtay caruurnimadeedii wax ii anfacay ma jiraan buu yidhi macnaha noloshayda saameyn badan bay ku yeesheen ayuu leeyahay marka akhri kutubta siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam wallaahi asxaabtu waa ka jeclaayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam naftooday ka jeclaayeen waxaana sabab u ahaa nebinimada ka sokow akhlaaqdiisa iyo naxariistiisa iyo jacaylkiisa sala allahu calayhi wasalam nebinimada ka hor ayay gaaladii quraysheed ku magacaabi jireen runlowgii aaminka ahaa nin asxaabta ahaa ayaa wuxuu yidhi xadiis aan ka maqlo rasuulka waxaa noogu farxad badnaa xadiiska odhanaya qof walba wuxuu la jirayaa qiyaame qofka uu jecel yahay sababtoo ah saxaabadu nebiga ayay jeclaayeen sala allahu calayhi wasalam sababtay ugu farxayaan nebiga ayay jeclaayeen oo waxay u jeclaayeen si xad dhaafa reer galbeedku cilmi baaris ay sameeyeen oo ku saabsanayd waa maxay tilmaamaha laga rabo hogaamiyaha wanaagsan su-aalo la ururinayay muddo 10 sano ka badan laga ururiyey qaaradaha 6 ah malaayiin qofna la su-aalay jawaabta koobaad marna isma bedelin oo waxay noqotay almistaaqiya ama credibility oo ah in hadal iyo ficilka qofka madaxda ahi run yahay bogay ka qoreen mistaaqiyada ama credibility-ga waxay ku qeexeen runlow aamin ah subxaan allah waa sifadii nebiga calayhi salaatu wasalaam quraysho ay ku sifeeyeen intaan rasuul laga dhigin dadka oo dhan gaal iyo muslimba waxay jecel yihiin mistaaqiyada ama credibility-ga qofka inuu runlow yahay aaminna yahay gaal iyo muslim sidaas ayay jecel yihiin mabda afraad gudo cibaadada jirka iyo tan qalbiga dadku aad ayuu ugu dadaalaa cibaadada jirka salaadii bay tukadaan way soomaan waa arrin fiican laakiin waa in miisaanka weyn la siiyaa cibaadada qalbiga taqwada alla ka cabsiga khushuuca cibaadada lagu khushuuco noqoshada ilaahay subxaanahu watacaala loo noqonayo towbadii waa wax fiican in aan salaada tukanno oo aan wanaajino laakiin salaad aan khushuuc lahayni qiimo ma lahan aan ku dadaalno cibaadada qalbiga waa inaan raadinaa oo aan akhrinaa kutubada loo yaqaano arraqaa'iq oo ah kuwa jilcinaya qalbiga waa inaan ku dayanaa culimada u toosan wadada alle subxaanahu watacaala ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwii wixii aan maqalnay ku intifaaca mowduuceena maanta intaasuu ku ogyahay subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk